السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دawadayaasha qiimaha iyo qadarinta sharafta mudan halka ay kala socotaan waa page rasmiga ee Facebook marka bilibiste fadlan hadii aad ugu cusub tahay waxaan xariiska ka codsanayna inaan soo falo gureysid like tan ugu dhiirigelin hadii aad saaxiib horena la tahay like tan ugu dhiirigelin sina share gareysid u daawadaan dad aad u badan sidoo kale commentigaada waa noo muhiim soo bixi faaladaada commentigaada saliimka ah waa kugu faraxsanahay waan ku soo dhaweynaa commentigaada waa muhiim fikirkaadana waa qaali soo dhaw haddaba barnaamijkan kala baradhulkaada sidii ay idinku ballan qaaday fiidiyowga hore waxa miiska inoo saaran galmudug haddaba maamul goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug baan maanta halkan idinku wadaagi doona intii aan aqoon si uu kala barato haddaba galmudug yaa iskale yaa deegaanka galmudug yaa u badan yaa majority-ka galmudug wax soo saarkeeda ama dhaqaalaheedu wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha nool iyo kalluumaysiga iyo xoogaa yar oo beera ah labada ugu weyn waa kalluumaysiga iyo xoolaha nool ee la dhoofiyo haddaba maamulka galmudug waxa madaxweyne ka ah beesha habargadir waa Axmed Kaariye Qorqor sidoo kale waxa madaxweyne ku xigeen ka ah beesha Mariixa waxaan ka soo qaadan doonaa 8 degmo oo aslaha waa 8 degmo ugu weyn ugu muhiimsan taas oo cadeyn karto cid walbo kuna ogaan karto awoodda iyo saami qaybsiga iyo reerka iskale ama dadka u badan galmudug soo dhaw haddaba degmada koowaad ee aan soo qaadan doono caasimadda galmudug waa Dhuusamareeb waxaana gudoomiye ka ah beesha habargadir sidoo kale caasimadda labaad waa Cadaado waxa gudoomiye ka ah beesha habargadir sidoo kale Cadaado waa magaalada ugu dadka badan ugu dhulka weyn galmudug sidoo kale labadaas degmo waxa majority ka ah boqolkiiba 99 ka ah beesha habargadir degmada saddexaad waa degmada Gurceel waxaana gudoomiye ka ah beesha habargadir waxaana majority boqolkiiba 85 ka ah ama la dhihi karo ilaa 90 ka ah percentage beesha habargadir degmada afraad waa dhanka galmudug gaalkacyo waxa gudoomiye ka ah beesha habargadir degmada shanaad waa Caabudwaaq waxa majority ka ah boqolkiiba 100 ka ah beesha Mariixaan ayaga ayaa gudoomiye ka ah degmada lixaad waa degmada Balanballe waxa boqolkiiba 95 ka ah percentage ahna dadka ugu badan Mariixaan ayaga ayaa gudoomiye ka ah halkaas waxa ku haystaa 6 degmo degmada toddobaad waa degmada Ceelbuur waxa gudoomiye ka ah majority ka uguna badan beesha Duduble degmada sideedaad ee ugu dambayso waa degmada Ceelleed waxa gudoomiye ka ah majority ka uguna badan beesha Wacaysle Abgaar sideedaas waa 8 degmo uguna muhiimsan uguna baaxad weyn gobolka galmudug haddaba 4 degmo oo kamid ah 8 aan soo sheegay iyo madaxweynihii waxa haysta beesha habargadir madaxweyne ku xigeenkii iyo 2 degmo oo kamid ah waxa haysto beesha Mariixa labada degmo oo soo hartay midna waxa haysta beesha Duduble midna waxa haysta beesha Abgaar haddaba halkaas waxa inoo cad beesha ugu badan uguna weyn la dhihi karo waxay leeyihiin galmudug waa beesha habargadir beesha labaad waa Mariixaan beesha saddexaadna waa beesha Duduble ahna beesha ugu hantida iyo lacagta badan waliba galmudug bas ma ahana qayb badan oo kamid ah Soomaaliya saddexdaas qabiil waa saddexda loo nisbay karo lahaanshiyaha dhulka galmudug haddaba daawade adiga fikirkaada muxuu ku leeyahay annaga cilmi baaristeena iyo sida cad ee muuqato ee aan xaqiri karin waa saddexdaas qabiil fadlan waxaan xariis ka codsanay hadii aanu cusub tahay inaan nala sii joogtid like-ta nagu dhiirigelisid sidoo kale sii share gareysid hadii aanu cusub tahay fadlan follow hadii YouTube-ka ka daawaysana channel-ka noo subscribe garay aad baa u mahadsan tahay nagasti waxa nagasti ahayda la tahay Koonfur Galbeed aad baan idin salaamaya nagasti waxaan soo gudbin doonaa Koonfur Galbeed hadii aad Koonfur Galbeed tahay fadlan la joog waxa kugu soo fool leh magaaladaadi maamulkaadi waxaan dul tagi doonaa maamulkaadi aad baa mahadsan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Peace and love waa wada jeclay dhamaantiin.